أرضي قلت واسدي إليس واسدا عرورتيو أكتوا بركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراسة لسمي سنة 2020 waxaa lagu ogaaday in ay ziyaaday soo saaridda muuqaalada percentage ahaan 254 boqolkiiba marka loo barbar dhigo sanadka 2019. taasna waxaa loo sababay qofka inuu maqaal aqriyo ama uu cod dhageysto wuxuu ka jecel yahay inuu wax daawado. marka laga soo bilaabo sanadka 2018 ilaa hadda waxaan internetka ku faafiyay dhowr koorso oo ku saabsan muuqaal sameynta iyo naqshadeynta iyo kombiyuutarka isticmaalkiisa iyo appska markaas uu leeyahay kombiyuutarka. koorsooyinkaasi kulli ardayda waxay u baahnayeen si ay ugu gaaraan horumar muuqda inay helaan kombiyuutar ay ku practice gareyn karaan casharadaasi aan u soo gudbiyay. gaar ahaan haddaan ka hadlo koorsooyinka tifaftirida muuqaalada, qofka ama ardayga wuxuu u baahan yahay si barnaamijtaasi uu u barto ama uu u practice gareeyo kombiyuutar awood leh oo xamili kara barnaamijtaasi. marka arintaasi waxay qofka ku abuureysay inuu niyad jabo iyo inuu ka caajiso yoolkiisa inuu gaaro oo ahay inuu barto sida muuqaalada loo sameeyo ama loo tifaftiro. marka baaritaano badan aan sameeyay iyo isbarbardhig kombiyuutarka iyo mobilkada smartphone-ka markaan joogno xaaladda muuqaal sameynta waxaan ogaaday horumarka ay ku talaabsadeen mobilada in laga maarmi karo ilaa xad kombiyuutarka. mobilkada smartphone-ka aa ku soo saari kartid muuqaal tayo leh oo soo jiidasho leh. xogtaani aan baaritaankeeda aan ku helay ma ahan waxaan ku degdegay waa waxaan kugu cadeyn doono koorsadani aan maanta kula soo wadaagayo. koorsadani waxaan u kala qaybay ilaa 2 qaybood. mid aan ku dhisayo asaasiyaadkada ee muuqaal sameynta ama tifaftirka muuqaalada iyo mid horumarsan oo dhowr projects ama mashruuc oo professional ah aan wada practice gareyn doona insha Allah. marka koorsadani waa mid basic ah waxaana ku baran doona sida u abuur leeday muuqaal soo jiidasho leh adigoo aadan u baahan wax kombiyuutar ah. koorsadani waxaan u naqshaday casharadiisa hab academic ahaan waxaana isku dayay inaan ka badbaadiyo sharaxaadka isdhaxyaacsan ee internetka ku baahsan anigoo ku siin doona xog kooban oo leh heer bilow ilaa heer dhexe. waxaan si qoto dheer ah kugu sharxi doona hababka tifaftirida fiidiyoyada, sida muuqaalada isugu habeen leed iyo sida u jarjari lahayd anigoo ku baraya dhowr farsamo sida transitionska u gashan lahayd iyo sidoo kale effectska iyo filterska u isticmaal lahayd sida muuqaalada qoraal u gelin lahayd. sidoo kale waxaan si qoto dheer ah iyadana aan kugu sharxi doona sida codad muuqaalada u soo gelin lahayd iyo sida u codeyn lahayd muuqaalkaasi iyo sida u gashan lahayd sound effectska. ugu dambeyn waxaan kugu tusin doonaa koorsadani sida muuqaalada u export gareyn lahayd si aad ugu faafiso baraha bulshada ama ula wadaagto asxaabtaada. anagoo ugu dambeyn isla soo saareyno project kaamil ah oo u dhameystiran muuqaalkiisa, sawirkiisa iyo codkiisa. intaas iyo in ka badan ayaan koorsadani ku falanqeynaynaa insha Allah. haddaa isticmaalaysa Android ama iPhone waa ila jaan qaadi kartaa koorsadani. waxaa la yidhahaa Salman Mado. waxaan ahay bara jaamacadeed wax ka dhiga jaamacadaha dalka ku yaala sida Ummadda iyo Simad. waxayna ii tahay farxad inaan idin noqdo barihiina koorsadani oo idin soo mariyo madashani afoogi. ku soo biir koorsadani oo aan ku tusiyo waxyaabo xiiso leh oo aad ku sameyn karto mobilkada smartphone-ka. أقبل معلمين تاو والدك العادي الله معلمك لك